السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر عصب ونكو برانينو بايثون وايل لوب wuxuu yahay iyo sidee loo isticmaalaa marka while loopka horey for loop baan usoo baranay for loop waxaad u baahan tahay mar walba collection ama list ama tuple ama set inaad collection haysataa collectionkaas ayaad markaa loop ku samaynaysaa laakiin while loopka adoon collection haysan ayaad samayn kartaa loops marka while loop in Python repeatedly executes a block of code marka codekaas uu execute garaynaya as long as a specified condition remains true marka conditionka true intuu yahay isaguna uu soconaya while loopkaas ilaa uu false ka noqdo marka halkan waxaynu ku aragnaa while conditionkii weeyaan conditionkaas hadduu true yahay it will execute the body this is the body kani waa marka bodygii codeka halkaasaan ku qoraynaa codekaasaa soo noqonaya ilaa conditionka uu ka noqdo false haddana tusaale elaynu arkaynaa marka while loop ayaan samaysanaynaa marka hore variable count is equal to 0 markaasaan leenahay while count is less than 5 مثلا print f format kadaan isticmaalno print number 5 haddii aynu saas ku run garayno wuxuu noqonaya wax la dhaho infinite loop infinite waxa weeyaan always true ayuu ahaanaya 0 is less than 5 marka mar walba true ayuu ahaanaya haddaan hadda run dhahno maanta dhan wuxuu printer garaynayaa 5 ilaa aan control c ku dhufano control c waa exit marka programkaagu ma joogsanayo waa inaad iska ilaalisaan waxaa la dhahaa infinite loop waa inaynu markaa dhahnaa count is equal to count plus 1 waxaan kaloo u qoran karnaa hore usoo baranay short form oo ah count plus equal 1 marka hadda 5 markuu printer gareeyo kabacdi uu istaagaya the number 5 halkan ku qorannay waxaan ugu talagalay inaan countiga printer gareeyo marka mar labaadaan run gareeyo wuxuu inuu sameeyaa 0 1 2 3 4 5 markuu gaaro ayuu markaa joogsanaya marka infinite loop waa la iska ilaaliyaa infinite loop waxaa ka mid oo kale haddii aad dhahdo while true print kana waa infinite loop marnaba false ma noqonayo markaa loopkuu soconaya taan run dhahno oo kaas ilaa control c aan ku dhufano loopkuu soconaya marka waa muhiim in la iska ilaaliyo infinite loopka haddaan dhahno while false marka maadaama conditionkii uu false yahay bodyga ma execute garaynayo marka while loopka ma run garaynayo qaybtaas markaa waa muhiim in la fahmo tusaale kale arkayna waxa weeyaan waxaan rabnaa inaan qofka magaciisa weydiino ka bacina aan salaano marka waxaan leenaynaa while true magacaan weydiinaynaa input enter your name baan nidhi markuu magac geliyo aan markaa print f formatka haddaan isticmaalno f nice to meet you kabacdi magacii baan gelinaynaa nameka sidaa keliya haddaan samayno markaa while loopkan wuxuu noqonayaa infinite loop maayo mar walba waa true haddaan hadda run dhaho magacii weydiiyey deeqa nice to meet you deeqa axmed nice to meet you axmed marka wuu soconayaa ilaa markaan aan control c ku dhufto haddaan dhahno cali nice to meet you cali marka waa infinite loop waa inaan control c dhahnaa laakiinse waa inaan mar walba programka while loop markaa isticmaalayso waa inaan siinaa userka inuu ka bixi karo programka marka waxaan oranaynaa enter your name or quit oo kale matalan or quit marka quit hadduu geliyo marka waa inaan programka baxna si aan uga baxaynaa break waxaan isticmaalaynaa marka waxaan jegaraynaynaa intaynaan printer garaynin nice to meet you aan oranaynaa if name is equal to quit break baan oranaynaa marka loopka jooji haddii kale print
nice to meet you. marka haddaan daran garayno haddaan dhaho Sahra, nice to meet you. kabacdi haddaan hadda quit qoro exit buu samaynaya. okay, conditionkaas waxaa muhiim inaan iska ilaalino markaa waa case sensitive. haddaan hadda mar labaad ran garayo codeka aan dhaho haddaan quit or capital Q aan geliyo ma shaqaynaya quitki, magaca ayuu malaynayaa. haddaan isagoo wada capitala geliyo marka wuxuu dhan lowerka iska dhiga. si aan marka mar walba u shaqeeyo waxaan samayn karnaa conditionkii ayaan wax ka bedeli karnaa ama enhancement ku dari karnaa. marka haddaan hadda ka baxno quit haddaan qoro caadi exit baan sameeyey. conditionkan waxaan leenahay marka if name dot lowercase baan bedelayna wax walba qofka geliyo ama capital ha geliyo ama lowercase, mar walba lowercase baan bedelaynaa. marka mar walba uu shaqaynayaa codekan. qaybtaas waa muhiim in marka conditionada markaad samaynayso aad iska hubisaan. tan hadda run dhahno name si aan geliyo laakiinse quit capital Q aan ka dhigo exit kuu samaynaya. haddaan mar labaad run gareeyo aan geliyo quit oo wada capitala weli uu shaqaynaya maadaama aan mar walba lowercase u bedelayno. marka waxaan samayn karnaa break intayna samayn. waxaan samayn karnaa userka aan u sheegi karnaa inuu code inaan programkii uu markaa dhammaaday. waxaan oran karnaa matalan goodbye. okay, haddaan run dhahno iminka Ahmed haddaan dhahno quit goodbye buu soo qoraya. marka adigu waa iska user friendly inaad u sheegto qofka inuu programkii joogsaday. sidaan hore usoo aragnay break wuxuu joojinayaa while loopko dhan ayuu joojinayaa. waxaa jira isna continue statement. continue marka with the continue statement we can stop the current iterationkaas socda ayaan joojinaynaa. kabacdi dib ayuu noqonayaa and continue with the next. marka halkan oo kale 5 ayaan ka boodaynaa kabacdi laakiinse inta kale wuu sii soconayaa. tusaalahaasaan arkaynaa intaan ran garayno. halkan waxaan isticmaalaynaa range oo hore usoo dhiganay. marka 10 number ayuuna siinayaa. sidiis haddaan ku ran gareeyo 10 number ayuu noo print garaynaya from 0 to 9. laakiinse haddii aan continue isticmaalaan dhaho if number is equal to 5 continue. marka hadda number 5 keliya aan ka boodaynaa. tusaalahaan arkaynaa marka ran garayno 0 1 2 3 4 kabacdi 6. marka continue wuxuu ku ogolaanayaa inaad ka boodo number. muhiimaddan waxa weeyaan iterationka hadda socda ayuu joojinayaa laakiinse wuxuu sii wadaya ka ku xiga. so it will go to the next iteration. tusaalayaasha aanu isticmaali karno marka while loop waxaa ka mid ah matalan markaan checkaraynayno password. halkan waxaan haysanaa user password is empty. marka userkaan weydiinayna passwordkaan sugayn inuu geliyana waa passwordkaas. waxaan leenahay while user password is not equal to password continue. marka keep asking inaad qofka user passwordka weydiiso ilaa uu ka geliyo passwordka saxda ah oo uu ka noqdo markaa conditionkan true uu soconaya programku. marka haddaan dhahno hadda run password haddaan waxaan doon iska geliyo wuu weydiinayaa mar walba. haddaan geliyo passwordka saxda ah waxbaan khalday password access granted ayaa soo baxay. marka kan wuxuu noqonayaa true markay labada password isla egyihiin laakiinse as long as they are not equal the loop will continue. marka ilaa iyo intaynan isla ekayn loop wuu soconayaa. markuu markaa passwordkaasi la mid noqdo passwordka kale ayuu conditionka true noqonayaa. kabacdi markaa loopkuu joogsanayaa printkan uu soo print garaynaya. waxaa kaloo loo isticmaali karaa markaad rabto inaad duplicateska ka saarto listiga. horaan usoo dhiganay inaad waxaa fiican inaad set isticmaasho laakiinse while loopkana waa la isticmaali karaa. sababtuna waxa weeyaan remove functionka haddaan dhahno bets dot remove cat oo kale wuxuu remove garaynayaa midda ugu horeeya catkaas laakiinse kan kale labadan kale ma remove garaynaya ama ma delete garaynaya. haddaan run dhahno weli waxaa inoogu jira
laba cat ayaan ugu jira kii ugu horreeya ayuu delete garay marka waxaan isticmaali karnaa while loop waxaan oran karnaa while ereyga cat ama itemka cat in pets remove cat markuu soconaya ilaa uu marka dambe conditionka true buu ahaanaya mar walbu cat ka helo listiga laakiinse markuu waayo ayuu markaa noqonaya false kabacdina loopku ka baxayaa haddaan run dhahno waxaad arkaysaan wax cat ah kuma jiro dog fish rabbit catka waan delete garaynay ma anagoo isticmaalaya markaa while loop okay waxaynu soo gaarnay waqtigii challenge-ga marka intaad videoga yara joojisaan isku day inaad challenge-kan ka shaqaysaan waxaa la rabaa markaa write a program that keeps asking the user to enter product names and their prices so waxaad weydiinaysaa qofka product namekii iyo pricekii and you have to keep asking marka waa inaad isticmaashaa while loop then saves them in a dictionary informationkaas waxaan ku save garaynaa marka dictionary product nameki wuxuu noqonayaa keygii pricekiina wuxuu noqonayaa value the program should continue until the user types done programka inuu socdaa markaa ilaa uu qofku markaa done ka type gareeyo as a product name finally marka intaas aad dhamayso waxaa la rabaa inaad print garayso finally print out the dictionary and the total cost of all products dictionarygii iyo productiga totalkii ood isku wada dartay inaad print garaysaa la rabaa isku daya kabacdina solutionka waan idin tusi doonaa okay haddaan arkaynaa marka solutionkii waxaan samaysanaynaa dictionarygii waxaan u bixinaynaa shopping list marka empty dictionary ayaan samaysanay kabacdi waxaan leenahay while true waxaan weydiinaynaa marka productiga enter the product name okay marka waxaan nidhi enter the product name or done to exit markaasaan checkgaraynaynaa if product is equal to saan hore usoo aragnay marka waxaa muhiim inaan halka dhigno dot lower case so lower case baan ka dhignay dot lower waxaan leenahay break haddii kale marka productigii waan haysanaa magaciisii pricekii baan weydiinaynaa enter the priceka maadaama uu noqon karo decimal point uu haysan karo waxaan ka dhigaynaa float baan u bedelaynaa bacdi marka haddaan dictionary ku daraynaa productigii iyo pricekii shopping list keygu wuxuu noqonayaa product valueguna wuxuu noqonayaa markaa pricekii okay for loopka halkaasaan ku dhammaynay marka uu soconayaa ilaa uu userka keliya done markuu ka baxo ayaan markaan print garaynaa informationka let's say print shopping list baan nidhi marka for loop waanaan isticmaalnaa for waxaan kaloo isticmaalnaa for loopka dot items maadaama dictionary haysano waxaan hore usoo baranay dot items inuuna siinayo keygii iyo valuegii waxaan leenahay for product price in shopping list dot items and horaan usoo dhigno dot items waxayna siinayaa tuple ka kooban productigii iyo pricekii print productigii iyo pricekii maadaama aan totalka rabno inaan xisaabino waxaan samaysan karnaa variable halkan total equal to 0 kabacdi totalkii aan halkan pricekii markaan soo qaadano ayaan totalkii ku dar waxaan leenahay total is equal to price plus equal aan isticmaalaynaa price marka halkan pricekii mar walba loopka markuu soo noqdo pricekii cusba ayaan ku daraynaa totalka loopka markaan dhamaynaa marka waxaan leenahay marka print
total price marka waxaan ka soo qaadanaynaa totalki okay halkaasaan ku dhamayna markaa fontigan yara yaraynaysa aad u aragtaan haddaan ka dhigno okay markaa shopping listigaan samaysanay while loopkii oon markaa informationkii kusoo ururinayno dictionaryga kabacdi markaa for loop aan isticmaalaysaan u birtigrayno resultiga okay let's run okay control C on ka okay intaynaa ran garayn halkan exitka waxaa fiicanina markaa colon iyo space aan dhexsiino si productga aanu markaan qorayno aanu ugu dhegin exitka kabacdin let's run price waxaan leenahay markaa waxbaa khaldamay let's run again product waxaan leenahay pen price 1.5 book 2.5 tandahano done inoo qoray shopping list pen 1.5 book 2.5 pricekina waa 4 total pricekina waa 4 okay waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysteen waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu